Guddoomiyaha gobolka Cayn ee dowladda Puntland Maxamed Nuux ayaa maanta ka hadlay warar sheegaya inay jiraan dad looga shakiyay inay qabaan cudurka coronavirus oo ku nool magaalada Buuhoodle. Guddoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin wararkaasi ee ay yihiin kuwa been abuur ah oo si khaldan loo baahiyay. Guddoomiyaha ayaa uga digay bulshada ku nool magaalada Buuhoodle inay faafiyaan warar aan sal iyo raad toona lahayn. Waa kan Guddoomiyaha gobolka Cayn Maxamed Nuux oo ka bixinaya arrimahaasi faahfaahin dheeraada. waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladaasi cudurkaasi coronavirus ee gobolka Buuhoodle gobolka Cayn oo ay dadku si aan sal iyo raad toona lahayn dad uga hadleen laba qodob oo arrinta quseeya. qodobka koowaad qodob ilaa shalay aad isla dhex marayay oo ay sheegayaan dad in culimada gobolka Cayn ay ka hadleen jaamaca magaalada Buuhoodle iyagoo sheegaya in ay jiraan dad xanuunsan oo xanuunkaasi la nool calaamadahoodina dhammaan ay ka soo ifbixeen. arrintaasi waa arrin waxba kama jiraana culimadu xalay mar labaad waa ka hadashay waa arrin aan sal iyo raad toona lahayn. guddiga caafimaadku arrintaasi ma xaqiijin culimadu arrintaasi ma xaqiijin annagu kama warqabno arrintaasi marka waxa weeye arrin aan sal iyo raad toona lahayn. arrinta culimadu ay ka hadashay waxa weeye in uun taxadarkeeda la yeesho in la dadaalo maadaama xanuunkii guud ahaan Puntland uu soo galay guud ahaan Soomaaliyana uu kasii faafayo taxadar laga muujiyo ka hortagiisa oo dadku ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ururada caafimaadka iyo guddiyada caafimaadka iyo maamulka gobolku ay baahinayaan. ujeedkooda intaas un buu ahaa wax arrinta ka jiraan haba yaraatee ma jiraan. dhanka kale waxaa jira warar iyaguna sheegaya dad muhaajiriin oo dhawaan ka gudbay xuduudan Buuhoodle in ay sheegayaan wararku in qof kamida laga helay xanuunkii markii jigjiga la geeyay. arrintaasina waxaan dadka u sheegaynaa bulshooyinka inaan wax laalaa wax ka jirin dadkaasi waxaa gacanta ku hayay ururo dhalinyaro markii hore annaga ayaa kala qayb qaadanay ururka xilqaan oo halkan uga mahad celinayo annaga ayaa kala qayb qaadanay arrintooda iyo gudbintooda iyo hayntoodaba. dadkaasi waxaan ku wareejinay maamulka gobolka Doolo ilaa iyo haatan iyaga ayaa gacanta ku haya magaaladaas wardheer bay ku sugan yihiin. tastiyada laga qaaday iyo karantiinka loo sameeyayna wax jawaab ka soo baxday noomay sheegin mas'uuliyiinta aan la xiriirnay gobolka Doolo iyo degmooyinkiisa qayb ka mid ah. arrintaas marka dadkaasi waxa wali lagu hayaa magaalada wardheer. arrintaasna waxaan cadeynaa wax ka jira in aysan jirin oo dadkii halkan ka gudbay aan laga helin xanuunkaasi. shakhsigaas oo ahaa shakhsi ka yimid Puntland gaar ahaan Boosaaso kadibna ka gudbay magaalada Wajaale 14 cashan xarunta karantiinka ee jigjiga lagu hayay. xogaha aan jigjiga ka helinay iyo kuwa wareer aan ka helinay basaasay noo sheegeen. arrintaasna waxaan rabaa inaan si toos ah cadeeyo inaan wax ka jirin haba yaraatee. waxaan ka digayaa warar kasta oo ku saabsan xanuunkaasi coronavirus iyo faafintiisa in bulshada la wadaago warar aan wax ku ool ahayn ama sal iyo raad toona aan lahayn. guddi caafimaad baan magacawnay dhakhaatiir baa ku jirta culimaa ku jirta uqaal baa ku jirta. arrintaas wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna qayb weyn ka hogaaminaysa ee gobolka. arrintaa wixii ka soo kordha iyaga ayaa looga dambeynaya xogta ugu dambeysana iyaga un baa laga qaadanaya insha Allah ta'ala. sidoo kale guddoomiyaha gobolka ayaa taasi u diray dadkii ay xalay ka geeriyoodeen dadkii ku geeriyooday roobabkii daadadka watay ee ka dhacay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. marka hore waxaan tiiraanyada halkan uga dirayaa guud ahaan ummadda reer Puntland gaar ahaan dadkii ku waxyeeloobay ama dhimashadu ay ka soo gaadhay qoysaskoodii daadadkii xalay ku dhuftay magaaladaasi Qardho oo runtii arrin bini'aadantinimo xaalad aad u adag ka dhacday. cid kasta ku waxyeelowday oo ay dadkii kaga dhinteen eheladooda ahaa tacsiban u diray in Ilaahay samriye iimaan Ilaahayna uga boogadhayo. waxaan soo jeedin lahaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in loo gurmado gurmadkaas dhibaatada Qardho ka dhacday. ummadda Soomaaliyeed waa dad wanaagsan waa dad isjecel waa dad isu naxariista maadaama lagu jiro bishii Ramadaan oo ah bishii naxariista bishii sadaqada waqtigii wax la bixiyo waqtigii ugu wanaagsanaa. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in loo gurmado si isku mid ah gaar ahaan ummadda reer Puntland inay isku tiirsadaan si midnimada arrinta looga jawaabo. اسمه محمد عبدي اسمه دقن ورباهنت دولة Puntland magaalada Buuhoodle.